allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alxamdu markoobaad ilaahi subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa noo suurtogeliya gacan ku haynta degmada weyn ee Owdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose marka labaad waxaan u mahad celinaynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ciidamada USAM oo gaar ahaan ciidamada Uganda oo halkaas howlgal ballaaran ka sameeyay waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu bishaareynaa in maanta ay gacanta ku jirto degmada Owdheegle iyo tuulooyinka hoos yimaado in miino baar laga sameeyo ay degmadii iyo hareeraheeda ay safe tahay ee gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ammaanka magaaladaasna waxaa gacanta si buuxda ugu hayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibadooda waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed halkaas ku nool oo beeraleyda ah si nabadgelyo ah beerihiina u tacbada ciidamada qarankana la shaqeeya waxaan ku bishaareysataan inay gacanta ku hayaan wiilal Soomaaliyeed oo idinka naxayo oo maalmahaanba dadaal weyn ugu jiray inay gacanta ku dhigaan meelaha yar ee gacanta ku hayaan khawaarijta al-Shabaab marka kale waxaan u mahad celinaynaa geesiyaasha qaranka oo guta waajibkii saarnaay oo nabigeena yiri kaleey salaatu wasalaam la in atraktuhum la aqtulannahum qatl aadin haddaan haleelilahay khawaarijta qolada la yiraahdo waan laylahay sida reer cad loo laayay wixii uu nabiga tamani kaleey salaatu wasalaam ayaad gacanta ku haysaan bishaaraad waaweyn ayaad gacanta ku haysataan waxaad leenahay idin bogaadinaynaa anigoo ku hadlaaya afka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo wakiil ka ah waxaan leeyahay howl qaran ayaa qabateen shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda qarankana way ogsoon yihiin wabillahi tawfiiq